Soomaaliyeed ka dhigi lahayd magaalada Hargeysa asigoo uu cuskadii sharciga islaamka in uusan raalli ka ahayn in show la dhigo warkay dhageysta asigoo uu cuskaday sharciga islaamka ama diinta asigoo uu cuskaday oo yiri sharciga islaamka ma dhigayo in show la dhigo ma xuma xilli ay Hargeysa habeen iyo maalin ama mar walba ama markii loo baahdo ay fanaaniinta heer Hargeysa ku sugan caanka ah ay show ka dhigaan madadaalo ka sameeyaan guwaabin ay ka sameeyaan ala kulli xaal Hargeysa inay fanaaniin joogaan oo show ay dhigaan laba caalami isku diidaysa umaleeya inta dadka adduunka ku nool dhan fanaaniin caan ah ku sugan oo mar walba heesta waxayna ka dhaxaysaan magaalada Hargeysa heeskii Hargeysa inaas ka soo batay hatta unkaasna soo gaari unka waana moodi Kenya's gaari Kenya's ka baxay Africa waa ka baxay Australia stay Australia waa ka soo roor Ingiriis ka stay Ingiriis ka soo dhuntay Mareykanka simid Mareykanka soo gooy Carabta stay maxaa yeelaya dawa waa fanaaniin caan ah ayagoo waliba Hargeysa ku sugan oo heesa su'aasha hadda waxay tahay lisweydiinayo maxaa target ka dhigay gabadha kaliya ee fanaanada Soomaaliyeed in target oo ka dhigo wasiirka diinta iyo awqaafta ee Somaliland faaliyaha qaranka cidna kuma foorarahe farta yaal isku fiiqin